taliyaha booliska Soomaaliya General Xijaar waxaa lagu waramayaa in saldhigga booliska garoonka diyaaradaha aadan cadde uu hoosgeeyay taliska guud ee booliska gobolka Banaadir. Talaabadan waxaa la sheegay inay la macno tahay in taliyaha booliska gobolka Banaadir Saadaq John uu awood u leeyahay magacaabidda xilka qaadista iyo howlgelinta saldhigga booliska garoonka aadan cadde. Wareegtada General Xijaar waxaa lagu caddeyn in sababta dhabta ah ee ka dambeysa talaabadan oo timid xilli dalka uu ku jiro xaalad cakiran. Lama oga haddii isbeddelkan uu salka ku hayo arrimo siyaasadeed oo dawladdu waqtigu ka dhacay rabto inay ku cadaadiso mucaaradka diidan. Warbixinno uusan weli xaqiijin Nation Media waxa ay sheegaysaa in dawladdu waqtigu ka dhamaaday ay isbeddelkan ugu sameysay markii ay ku hungowday adeegsiga askarta AMISOM. Ciidamada howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM waxa ay toddobaadkii hore isku dayeen inay ilaalada ka reebaan midowga musharaxiinta intii ay ka qaybgalayeen salaada janaasada ee madaxweynaha afraad ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed walow arrintaasi laga diiday. Farmaajo waxa uu wajahayaa eedeymo ay ka mid yihiin inuu diidan yahay qabashada doorashooyin daahfuran, wada hadallo laga yeesho khilaafka doorashooyinka, iyo inuu ciidamada siyaasadeeyay una adeegsanayo damiciisa gaarka ah. Cabdishakuur Maxamed Maxamuud, warbaahinta Nation.